marka hore ilaahay khayrka hayna waafajiyo anigu waxaan ahay anigu injineerka aadan laba noo saaxiib aan nahay laba noo injineeraayo aad isku xidhan baanu nahay anigu waxaan ahay shakhsiga keliya ee goobjooga ee macar xogta ilaa badhamaad ah baan ahay goobjoog baan anigu ahay laba ninoo saaxiibana waanu nahay marka filimka markii ugu horeysay guuleed markii nabarka lagu dhuftay habeenkii saa wax ugu dhaceen maalmadkii saa wax ugu dhaceen habeenimidku aniga la soo hadlo wuxuu ugu dhayeen Cabdiraxmaanow fal noocaas waxa ugu dhacay buu niman noocaas ay dilay ay kaale bi guri waanu imi habeenkii markaas ugu nimay gacanta waxaan ku dhisay wax u dhaceen wuxuu ugu dhiniyow gidaar halka meesha halkaas aan qandaraaskeeda qaatay ayaan si cagaf geli cagaftii markaan sii gelina gidaarkii intaan cagaftii sugay gidaar fadhiista gidaarkii laba nin oo dhar cad ay yimi labadii nin dhar cad aan ku maxay laan ka maxaan ku maxaan ku kaca labadii nin bay qabtayo dirbaax markii gaarsiino way qaadeeno gurigii bay la galeen gurigii markay la galeen kood walba ugu dhufteen marka gacan bay macal ka jibiyeen marka isla markiiba nin kamid ah garto wuxuu ku dhawaar meena Xuseen baa to ninkii baa dabad kuri ka qaada faraa way sii daayeen marka maalinnimadkii lagu dhuftay subaxeedii waa anagu israacnay labadoo qura israacnay si aanu sii soconay waxaan tagnay xiraalinta gobolkaanu tagnay inaan kala dhaam mawlid xiraalinta isaan ugu galnay qof labadii qof ugu horeeyay habaan u galay markii aanu xiraaliyaa u tagnay mawlid wuxuu nagu dhigay sheekad baan uga sheekeena warqad shaambadaysan buu na siiyay wuxuu waxaad ku qorataan saldhiga masala isla masali baan tagnay odag yaraaye masala joogay taliye saldhiga Saalax ayaanu face la kulanay Saalax markaan la kulanana xaajiye 7 askar la socdaan ayuuna raaciyay aadan gaarigiisu soo kaxaystay ana askartii xaajiyadii askarta ayaan raacay askartii markaan marano istabta madaarka markaan marano ayaan ku waaniyo niman hubaysan ee digtoonideeda yeesha askartii waxa dhahan warana waxba digtoonidaanu qaadanayo xaajiyada bay yiraahdeen nin qurwaanu ka dignaa guriga saa ugu hor jarnay mooyaan sidaa markaan guriga u tagnaa askartii sidee nidaamsan oo habaysan oo digtooni bay u qaateen albaabkii markii saa loo furay ninkii koobaad bay indhaha babka ka dhufteen ninkii wuu cabaado wuxuu askar baano dabad ninkii way qabteen oo xaajiyadii bay laba ku tuureen intay waxana qabteen ilaa 7 nin oo dhar cada oo qorisita ayaa gurigii intii marka deerkii baan ku wareejinaa waxayguba ayay guriga xaqii guriga xigtay guriguna guri fooqo intii xaqii xigtay isku iyo qoriyo bam gareysay askartii la socotay maaha askartii kala dharka cadahayd guriga ugu tagnaa ayaa bam gareysay qorigii dabad kiidinkii sidii dad meesha ku xuna kala ilaalinayaan guriguna guri shacab oo cidlaayo halka arki doonto ayay islaaliyeen kadib mid kamida ayaa gudaha ka soo boodo oo aan ninkaanu haynay aan hayn dabad ninku wuxuu aniga idin raacaye ina Mariya ninkii hore xaajidaan raacno xaajidii u saaray labadii nin baanu sidii ula yaacnay markaan labadii la tagnay saldhigii baanu tagnay saldhigii madaarkaanu tagnay saldhigii madaarka markaan saa labadii nin u fadhiisinay ayaa odagii saldhiga haysay Saalax baa madaar gudihiisa ku maraa 10 mirir meelaha san fadhinay 10kii mirir anagoo fadhina ayuu Saalax noo yimi Saalax waxa weeye ninkii Saalax weeye taliya saldhiga weeyaan taliye madaarka taliye saldhiga noo yimi markii noo yimi anagoo nimankiina ay ku jiraan gudihii ayuu ri mee nimanka wadeen askartii ku hornay anagana goormaayay askartii nimanka soo qaaday askartii wuxuu waa kuwan kelmad kalaba ma oran Saalax taliye saldhigu wuxuu ri nimankan barta ka keentay la carogi nimankii on kaabadiiba ka bixinba ayuu ka soo galay inanka madaxweynuhu isagoo xaajidii kidinka saa ugu dhuftay albaabka kidinku saa ugu dhuftay askarigii meesha taagnaaba kuri joog marka inanka madaxweynuhu waa bilaadreys laba nin oo kale bilaadreysna wala socon xaajid wuxuu wataa marka xaajid buu isaguna inanka madaxweynuhu xaajid buu wataa inanka madaxweynuhu dhalay marka askarigii bay wala murmeen askariga kuri digtoonow askariga kuri maxaan digtoonaada maxaa taybay kuri askartii kala ku soo yacdo askartii kala kuri digtoonaada askartii kuri maxaa tay askartii bay wala murmeen wala raacaqno inankii Axmed ka inanka madaxweynuhu dhalay way wala murmeen inaad aragtiin kale mooyana saldhiga iyo oobigu way seegayaan oobigan saldhiga iyo waxa seegaya kidinka
odaygii taliyii saldhigaa bartaa ka arkay inaan wala murmayaan waanu soo wala kacnay wax ayagiiba inankii madaxweynaha waa kaa ku yidhi axmedow kaalay buu ku yidhi inankii madaxweynaha waxba muu taliyii tixgeline wuxuu ihi waariyaa digtoonow buu yidhi dabeed inankii baa odhanaya askartii kale ku odhanaya inankii madaxweynaha ku odhanaya askartii kale dee digtoonow hadda si fiican inad fahantaa fiican dabeed odaygii taliyii saldhigaa ku yidhi kaalay axmedow markii aanu saa nidhi bay sheekadii bay isbedeshay odaygii baa la galay obigii la galay obigii ilaa 3 mari iyo kula hadlay markii inankii uu soo baxay axmed kan inankaa madaxweynuhu dhalay markuu soo baxay annagu meeshaanu taaganay nimankii dulmanayaashaana waanay inuu na yidhaabay ahayd war anaa dee nimankan ka mas-uulo oo ciidan oo anaa wax idiin qabanay ama anaa wax idinkala si ixtiraam leh inuu noola hadlay ahayd nama u ixtiraamin waxna nama weydiin waxaana la socday labadii nina dilay ee ninka aadka u dilaa weliba ayaa la socday nin la yidhaha faysal oo godan iyo nin kaloo la yidhaahdo ku yaro kaloo la yidhaahdo cabdi hayan oo anaku markii hore iskulaas ahaan jirnay berigii hore ayaa la socday annaga wax keerasna muu siin isagoo sidiisiya oo xaajiyadiina labada askar markii hore u celisay ayuu inankii madaxweynu dhalay si yaroo dee iska maray odaygii baan u gallay odaygii baa dee taliyii saldhigaan u gallay taliyii saldhiga wuxuu nagu yidhi taliyii saldhiga wuxuu nagu yidhi anigu warqadiinii qaata xeeraaliyaad kala timaadeen waxba anu kama qaban karo xeeraaliya kula noqda xeeraaliya baan dib waktigaa horta maalinta lagaa nagaga dhacay anugu intii dambe maan raacin dee laakiin xogtu siday mar walba habeen walba eeg inankayga iga horreeyey iga hadla horaha isaguna sii raacay xeeraaliyihii wuxuu qoray xeeraryaha kale ee qarankuu qoray ciidamada qaranka kiina wuxuu ku yidhi xogtii saldhigii soo qor iyo nimanka magacyadoodii haddana aadan aniga igu soo noqday wuxuu igu yidhi niyow nimanka bar badan baad garanaysay waxaan doonaya de inaad ila hawl gasho oo nidaamkii aad la hawl gasho waan la hawl galay haddana de ninka nin aan saaxiibo nahay aanu ilmaadeerna nahay weeyaan ninkana nabar baa ku yaala marka anagu cabashanu ka cabanay waxa weeye oo anigu aan taaganahay horta inanka madaxweynaha maalintaas anigu arkay waxaana dee arago la iska dhaleeceeyo qofka madaxweynaha inankiisa in la iska dhaleeceeyo maaha laakiin anigu maalintaa goobjoog baan inanka madaxweynaha anigu arkay oo aanu wax keerasana siin ninkaana arrintiisa aanu waxba ka hadalba hadalka inta lasoo ururiya fiican taasi waa taa ta kale dee inanku intaasoo dhan baa 5 cishaa meel alaale meel ku xidhan aanu nimankan annaga inankii hore hadlayba meel walba ka daynay aanu meel walba isku raacnay alaankaa jid alaale jid la mariyey halkaasuu ku xidhan yahay qof alaale qof loo sii daayey ma jiro dee waxaanu kaga cabananaa nimankaa dadka iska xidhanaya ee guryaha gaarka ku xidhanaya dee tacadiga ku hadlaya dee annaguba qarankaanu ixtiraamanaa qori maanaan qaadan kari waayan oo dee waa xaafadayadii hadda ma garata marka waxaanu ka cabanaa in 24 saacood jawaab sax ama ninka faraha laga qaado ama jawaab saxana laga siiyo dee meeshooda hadday dawlad tahay in laga wada hadlo weeyaan dee taasaan marka aad iyo aadna way mahadsantihiin